siyaasi cabdikariin saalax maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland oo maanta shir jaraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland inaanay waxay ka qabatay haba yaraatee aan jirin adeegyada asaasiga ay u baahan yihiin bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. waxaynu oran karnaa mas'uuliyadeeda intaas oo dhan shaqaqadaha dilalkaas deegaanadaas dib u dhac ku dhacay waxa mas'uul ka oo ay dadkani doorteen mas'uuliyiintii iyo xukuumaddii iyo maamulka markaa jira waxaad moodaa xukuumadihii Soomaaliland soo maray laga soo bilaabo 1990kii ilaa iyo tamaanta joogtaa inay runtii wax xila iska saarin gobolada iyo deegaanada oo moodo inay ka tirsaneen oo island gooniya ay yihiin gobolada barigu xukuumaduna iyo horumarkuna uu u dhashay deegaanada galbeedka ee beesha dhexe ay degto haddaba xukuumadahaasi oo aad moodo inay si kala dhibaato iyo hawl badnaayeen waxaad moodaa xukuumadda maanta talada dalka haysa Soomaaliland oo iyadu shantii sanadood ee u dambeeyay aan ka warhayno in 2 sanadood oo kale wax ku dhow loo kordhiyay ay iyadu ka sii xag jirto xukuumadihii talada soo hayay xukuumaddaas oo caadaysatay inay mar walba adeegsato shakhsiyaad iyagu dana gaar ah leh oo aan marnaba daacad ka ahayn in horumarka iyo nabadgelyada goboladani ku talaabsadeen galbeedka la gaarsiiyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale waxay xukuumaddan talada haysaa caadaysatay in xilalka ay u dhiibto niman ay abtiyaal u yihiin oo iyagu ay hayb socdeen iyo kuwa ay ooriye walaal yihiin oo ay hablahoodu keeneen iyo kuwa kale oo la oran karo waa kuwa ku laran oo daba jooga nimanka ay isku haybta yihiin oo dilaaliin ah kuwaasoo sida gafanaha dhiiga xoolaha ama looda ama geela cuna ay ku naaxay dhiiga ummadoodii iyo shacabkoodii dilaalintaas oo iyagu u dhaxeeya shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland ee talada dalka haysa maanta shakhsiyaadkaas aan marna shakhsiyaadkaas oo ah shakhsiyaad iyagu marna xagga dabka ka soo huriya oo soo shida dhaliyana ummadda barakac colaad dilal iyo wax la mid ah marna xaggan xoolo iyo libinta ka qaata xukuumadda talada dalka haysa maanta haddii xaalka Soomaaliland iyo xukuumadda maanta talada dalka haysa ee iyadu doonaysay runtii 5 sanadood horena haysay 2 sanadood wax ku dhowna loo kordhiyay hadday xaalka sida uu ka dhigatay oo u garatay waxaanu ku ballansanahay haddaan nahay aqoon-yahaniintii waxgaradkii salaadiintii beesha Sool Sanaag iyo Cayn qurba joogta inaanu isugu nimaadno shir guud oo dhawaan ka dhici doona wiigaga soo socda magaalooyinka UK London magaalada Minneapolis iyo magaalada Melbourne